kulanti wanaagsan daawade halkan waa janalka madasha wararka ku soo dhawaada wararka madasha qodobadana waxaa ka mid ah Axmed Madoobe oo ku hoyday degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose maxaa ka jira in uu wado qorshe uu kaga hortagayo dhaqdhaqaaqyada dawladda federaalka ay ka wado gobolkaasi ma dhabba in ahlu sunno ay wado qorshe ay bandowga kaga qaadayso degmada Dhuusamareeb Somaliland oo amar culus dul dhigtay dhalinyarada u safarta magaalada Muqdisho sababtu maxay tahay dawladda Itoobiya sidee bay kaga hadashay raaligelintii dhawaan uu bixiyay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dad shacab ah oo qarax lagu dilay xilli Axmed Madoobe uu ku safrayay diyaarad militari ah oo ay leedahay dawladda Kenya haddii aad nagu cusub tahay subscribe si aad u hesho wararka iyo warbixinada halkan aan ku soo gudbino aynu ku horeyne dawladda Itoobiya ayaa ka hadashay raaligelintii madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhawaan ka bixiyay xasuuqii dawladdii Siyaad Bare ay ka geysatay deegaanada Somaliland wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Itoobiya ayaa warbixinteeda toddobaadlaha ahi waxa ay ku sheegtay in raaligelinta madaxweyne Farmaajo ay qayb ay ka tahay talooyinkii u dambeeyey ee loo arkay isfaham ay labada dhinac wada gaareen bixinta waxaa kaloo lagu xusay aqaabkii uu uga jawaab celiyey raaligelinta si madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi in ay ahayd mid wanaagsan waxaana lagu yiri madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay raaligelinta guud ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka bixiyay xasuuqii dawladdii Siyaad Bare ay ka geysatay deegaanada Somaliland madaxweyne Bixi wuxuu ugu sacbatumay tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo ay tahay mid gaar ah oo taariikhi ah sidoo kale waxa warbixintaasi lagu sheegay in labada madaxweyne Farmaajo iyo Bixi magaalada Addis Ababa ay ku qaateen kulankoodii ugu horeeyay oo albaabada u xirnaa labadoodu markii ugu horeysay waxa kulan albaabadu u xiran yihiin ay ku qaateen magaalada Addis Ababa warbixinta toddobaadlaha wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa sidaasi lagu yiri dawladda Itoobiya ayaa u muuqata mid iyadu ay door weyn ay ka ciyaarayso in dib ay u furmaan wadahadallada dawladda federaalka iyo Somaliland oo muddo hakad ku jiray iyo weliba dejinta xiisadda ka dhaxaysa labada dhinac markan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xalay ku hoyday degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaa halkaasi uu kula kulmay saraakiisha ciidanka Jubbaland oo ku sugnaa degmadaasi isagoo kala hadlay la dagaalanka shabaab waxa uu Axmed Madoobe amray saraakiishiisa ciidamada in ay bilaabaan howlgallo ka dhana shabaab oo weli ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka si looga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin waxaa kale uu ballan qaaday Axmed Madoobe in ciidanka Jubbaland la siin doono agab kasta oo ay u baahan yihiin hayeeshee dhankooda looga baahan yahay in ay bilaabaan dagaalka shabaab saraakiisha uu la kulmay madaxweyne Axmed Madoobe ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa magaalada Dhobley ku soo bandhigeen ciidamo fara badan kuwaasi oo saraakiishu ay sheegeen in ay fulin doonaan howlgallo ka dhanaa shabaab iyo cid kasta oo cadow ku ah maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa doorashadiisii ka dhacday magaalada Kismaayo waxaa ka hor yimid dawladda federaalka Soomaaliya isagoo dhanka kale aruurinaya ciidamo daraawiishta maamulka Jubbaland kuwaasi oo u diyaariyay in ay ka hortagaan caqabad kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta oo kaga yimaada dhinaca ciidanka dawladda federaalka waxaana sidoo kale Axmed Madoobe oo ku sugan degmada Dhobley uu la kulmayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan Dhobley oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhalinyarada si markaa ay qayb ay kaga qaataan qorshihiisa ku aadan difaacidda deegaanada Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ballan qaaday in saraakiisha Kenya ee hogaaminaysa howlgalka AMISOM gaar ahaan gobolada Jubbooyinka ay qayb ay ka qaadan doonaan howlgallada ciidankiisa ay ka wadaan deegaanada Jubbooyinka madaxweynaha Jubbaland ayaa gelinkii dambe ee shalay Dhobley ku gaaray diyaarad militari ah oo ka qaaday magaalada Kismaayo isla markaana ay leeyihiin ciidanka cirka ee dawladda Kenya haatan maamulka ahlu sunna wal jameeca ayaa waxa ay sheegeen in jawaab ay ka bixin doonaan caburinta ay dawladda federaalka ay ku hayso magaalada Dhuusamareeb waxaa sidaas sheegtay mid ka mid ah 20 xildhibaan ahlu sunna ugu jira baarlamaanka Galmudug xildhibaan Cibaado Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada ahlu sunna ee Galmudug ayaa waxa ay sheegtay in hadda kadib aysan u dulqaadan doonin bandowga dawladda Soomaaliya ay ku soo rogtay magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug magaalada ayaa waxa ku wada sugan Axmed Cabdi Qorqor oo ah madaxweynaha Galmudug garabka dawladda federaalka iyo madaxweynaha Galmudug garabka ahlu sunna Sheekh Maxamed Shaakir xildhibaan Cibaado Yuusuf ayaa waxa ay sheegtay in magaalada Dhuusamareeb ay amni ahayd ka hor intii
aan la geynin ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa haramka cad loo yaqaano kuwaas oo magaalada geliyey xaalad bandow ah. waxaa sidoo kale ay shaaca ka qaaday in hoggaanka ahlu sunna ay kulamo ay ka yeesheen xaaladaha xilligan ka taagan dhuusamareeb islamarkaana ay go'aan ku gaareen in jawaab laga bixiyo caburinta ay dowladda soomaaliya ay ku hayso shacabka degmada dhuusamareeb. xildhibaanka ma aysan shaacin nooca jawaab ee ay bixin doonaan xubnaha ahlu sunna ee ku sugan degmada dhuusamareeb. hogaamiyaha ahlu sunna waljamaaca ee gobolada dhexe macalin maxamuud ayaa 3 bishan ku dhawaaqay in ahlu sunna ay la soo bixi doonto hubkeeda si ay uga hortagto fasaad ay dowladdu ay ka wado magaalada dhuusamareeb. hayeeshee waxa uu sheegay in ahlu sunna dulqaadkii uu ka dhammaanayo islamarkaana xilligan ay taagan tahay xilligii gebi ahaanba dadka amni darada ka wada gudaha degmada dhuusamareeb laga hortegi lahaa. waxaana uu sheegay in xilligan ay tahay mid markaa ay keenayso in maamulkooda ay ka hortagaan dadka amni darada ka wada magaalada dhuusamareeb. markan duleedka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa casirliiqii shalay waxaa miino ay kula kacday gaari ay wateen 2 ruux oo shacab ah kuwaasi oo goobta ku geeriyooday. 2 ruux ee geeriyootay ayaa watay gaari nooca raaxada ah waxaana ay ka baxeen degmada afmadow iyagoo ku sii jeeday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose. gudoomiyaha degmada afmadow yuusuf xasan xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in la aqoonsaday 2 ruux ee ku geeriyootay qaraxaas miino oo watay gaariga, wuxuuna sheegay in gaarigaasi uu ka mid ahaa gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalooyinka afmadow iyo kismaayo ee gobolka jubbada hoose. dhinaca kale dadkaasi qaraxa markii loo dhigayey ayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaa diyaarad uu ka soo raacay magaalada kismaayo isagoo ku sii jeeday degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose. axmed madoobe ayaa xilligaasi waxa uu u socday dhoobley iyadoo markaa wadada xiriirisa afmadow qooqaani ilaa iyo degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose la sheegay maalmihii dambe ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka jubbaland ay ku sugnaayeen, waxaana halkaasi ka dhacay gaar ahaan nawaaxiga qooqaani dagaal u dhexeeyey ciidanka daraawiishta jubbaland iyo shabaab iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland qarax halkaasi lagula eegtay islamarkaana gebi ahaanba qaraxaasi uu burburiyey gaari cabdibilaah oo ay wateen. waxaana la filayay in axmed madoobe uu safar dhinaca lugta ah uu ku maro deegaanada gobolada jubbooyinka gaar ahaan inta u dhexaysa kismaayo afmadow qooqaani ilaa iyo degmada dhoobley ugu dambeyntii uu markaa ku tegi rabay safarka dhinaca dhulka, balse militariga kenya ayaa diyaarad waxa ay kaga soo qaadeen magaalada kismaayo islamarkaana diyaaraddaasi ay ka dejisay degmada dhoobley gobolka jubbada hoose halkaas oo uu ku sugan yahay. maamulka somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi cabdi ayaa waxa ay xayiraad ay ku soo rogeen dhallinyarada u safarta magaalada muqdisho. jaamac maxamuud axmed oo ah gudoomiyaha gobolka maroodijeex oo war ka soo saaray xafiiskiisa ayaa waxa warkaasi uu kaga hadlaya digniinta loo diray dhallinyarada ka soo safarta deegaanada gobolada waqooyi soomaaliya islamarkaana soo gaara magaalada muqdisho. gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhallinyaradu ay ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan fursado uu sheegay in xukuumadda somalilan ay ugu talagashay dhallinyarada deegaanada somalilan. waxaa kaloo uu gudoomiyuhu uu sheegay laablakaca uu ku tilmaamay fursadaha ay dhallinyarada reer somalilan ay ka helaan dowladda federaalka kuwaasi oo ay uga dan leedahay waa sida hadalka uu u dhigaye burburinta qaranka somalilan. mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxa ay heegan ay ugu jiraan in ay fuliyaan siyaasadda dhallinyarada oo wakiil ay uga yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo ah in gebi ahaanba la hakiyo dhallinyarada doonaysa in dhaqdhaqaaqyo ay ka sameeyaan deegaanada somalilan kuwaasi oo safarada ku soo gaara magaalada muqdisho. waxaana ugu dambeyntii uu sheegay in dhallinyaradu ay u soo jeediyeen in ay ka joogaan safarada ay ku yimaadaan magaalada muqdisho, waxaana uu sheegay in tani ay tahay mid markaa lagu burburinayo jiritaanka qarannimada somalilan, isaga oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay wado qorshe ay gebi ahaanba ay ku doonayso in ay ku burburiso maamulka somalilan. guud ahaanna warkii waa inaga intaa. fadlan haddii aad nuqo cusub tahay sabskraibda janalkan si aad u hesho wararka iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino. share iyo like-na ha ka ilaabin.